kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha janaal kusoo dhowaada gacmo furan. maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin hor leh oo aad u xiiso badan. si aad u jeedaan aktarka caanka ah Salmaan Khan ayaa iminka idiin muuqda. familkiisa iyo isagu ayaa waxaa lagu hanjabay in loo geysan doono dil qorshaysan. waxaa la adkeeyey ammaanka hoyga uu ka degan yahay xidiga Bollywood-ka ee Salmaan Khan dalkaasi India. arrinkani ayaa yimid kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay heleen warqad hanjabaad dil ah. warkani ayaa waxaa shaacisay warbaahinta dalkaasi India in aabbaha dhalay Salmaan Khan oo lagu magacaabo Saleem Khan uu helay warqad hanjabaad dil ah. warqadda waxaa ku qornaa: dhowaan Salmaan Khan iyo Saleem Khan waxaad la kulmi doontaan mid ka mid ah dilkii uu la kulmay Muuse waxa uu ahaa fanaan wadankaasi India oo bishii hore 29 la dilay. dib ayaa warbixinta kaga bogan doontaan. warqadani oo laga helay goob uu si maalinla ah ugu jimicsado aabbaha dhalay jilaaga Bollywood-ka, waxaana laga helay warqadaasi subaxnimadii Axaddii aynu soo dhaafnay. isaga uu faahfaahiyey hanjabaadda kuna wareejiyey warqaddii booliska. waxay islamarkaa yimaadeen guriga Salmaan Khan subaxnimadii Isniinta ahayd, islamarkaana waa ay baareen ammaanka hoygaasina waxaa loo sugay si aad u xoogan. jilaaga iyo qoyskiisa ayaa waxay degan yihiin dalkaasi India. aabbaha Salmaan Khan dhalay ee Saleem Khan ayaa warbaahinta kala hadlay arrinta, waxaana ku tilmaamay inay tahay wax iska yar, isaga uu diiday in uu faahfaahin dheeriya ka bixiyo hanjabaadyadaasi halka ay malaysan karaan ay kaga imaanayso. warqadda hanjabaadani ee uu soo gaartay qofka ayaa waxaa ku qornaa oo lagu xusay fanaanka la yiraahdo Saduq Muuse, waana la dilay 29 bishii hore. sidaas oo kale ayaan dhibkaas oo kale ayaan idiin geysan doonaa. waxaa lagu dilay fanaankani goob Punjab ah. dilkiisa waxaa lagu eedeeyey koox burcada oo hogaamiyahooda lagu xiray Delhi. maahan markii ugu horeysay oo dil loogu hanjaba Salmaan Khan. hore waxaa dil loogu hanjabay sanadkii 2018 markaasi oo ay dacwadi ku socotay maxkamad ku taala dalkaasina waxaa lagu haystay in uu dilay deero. booliska Mumbai waxay faahfaahin dheeri aysan ka bixinin hanjabaadyadaasi ugu dambeysay ee uu helay jilaaga Salmaan Khan. haddaba dalka India sida ka warqabtaan waxaa jira kooxo burcada sidoo kalena ka geysta dhibaatooyin fara badan.